السلام عليكم asxaabta waa idin salaam meel walba aad joogtaan isku soo noqod wanaagsan waxay idin tahay wanaagsan maanta waxaa rabaa inaad sii wado insha Allah sheekadeeni ama qisadeeni aan hore idinkaga sheegeynay qaybteedii labaad waaye hadda ku xusumtahay channelka share like comment waa intaba waa dhankaaga idii labaad qisada sida tan ayay ku bilaaban kan taajirka iyo xaaskiisa waxay cunayeen cunto aad iyo aad u tiro badan cuntooyin kala duwan sida ay u cunayeen ayaa si lama filaan irid loo soo gargaraacay labadooda ayaa isfiiriyay talo irida garaacaya xaaskiisa ayaa ku tiri ma garanayo cidda garaacaysa albaab laakiin waan soo eegayaa ogaadii xaaskiisa ayaa furtay irida kadibna ninkeeda ayaa ku yiri ma cidda garaacaysa albaabka waa nin faqiir ah wuxuu dhahayaa cunto isiiya ayaan u baahanahay ma haysan cunto aan ku tiro baahideeda taajirka ayaa ku yiri maya waxba ma hayna ku dheh bal fiiri agtooda waxaa taalo cunto fara badan oo kaafinaysa labadooda masaakiinta iyo cid walba oo faqiir ah laakiin dadka qaarkood ma jecla inay dadka masaakiinta wax siiyaan ninkii taajirka hadalkiisa wuxuu uu sii raaciyay xilliga masaakiinta la quudin ku dheh orodoo iska tag xaaskiisii ayaa ku tiri waa nin maskiin ah aan waxba haysan aan wax siino si ninkii taajirka ayaa ku yiri maya waxaas ma jiraan iska tag kii maskiinka ah oo kaajo la tabaalaysan arrinkii waxaa laga soo wareegtay maalmo ninkii taajirka ah waxaa u bilowday maalmo ninba maalinta ka dambaysa isbedelaya xaaladiisa intidiisa way sii yaraanaysay khasaaro joogto ah mushkilado isdaba joog ah ayuu ka dhammaan waayay intaa kadib waxaa bilowday khilaaf u dhexeeya asiga iyo xaaskiisa joogto ah walbadayaal iyo buuq walwalkii ayaa ku sii badan xaaladiisa ayaa isbedeshay ilaa iyo xaaskiisa u furay ay kala tageen kiisi ayaa sii batay oo uu ka soo istaagay meel eber ah